بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. أمد الصومالية ميلا جوجتان با الله يدين حفظيه وايدين سلامي. إلهي قفك دباتي سنبكا كقادو انت أبارها إيا علاضها قضاء إلهي سبحانه وتعالى أمني إيا برواقه وبدلو dalkeeni dhammaan ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba Allah xifdiyo. Waxa maanta sharaf noo ah inaan madasheena ku martigelino madaxweynaha maamulka Soomaali galbeed Ethiopia ama gobolka ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia Dr. Mustafa Mohamed Umar Mustafa Akjar. Mustafa Sodo waan dhowahay oo xiiso kuma asantahay doctorkaad siisay كسونا هاي ما شاء الله. marka koowaad waxaad si guud nooga warantaa bal xaaladda amni ee dalku hadda ku jiro. sanid mar kale sida la socoto xaaladda amni gaar ahaan gobolada waqooyiga ee dalka Ethiopia waa xaalad dagaal oo ka bilaabmay sanad ka hor markii kooxdii talada laga tuuray TPLF ay weerartay ciidamada qaranka November 3 habeennimadii November 3 ee sanadkii hore. xaaladaas markaa bilaabatay oo marxalado kala duwan soo martay ayaa haddana meel qaraar maraysa. marka meelo badan oo dalka ka mida waxaa ka socda xaalado amni darro iyo khilaafaad la xiriira isbeddelkii ka dhacay dalka iyo diidmo ka yimid kooxihii gaar ahaan kooxdii talada haysay iyo kuwo kale oo iyaguna intii isbeddelku jiray qaabkii u socday saluugay. marka xaalad amni darro ka jirta, laakiin deegaanka Soomaalidu alxamdulillahi rabbil caalamiin wuxuu ku jiraa xaalad aad u wanaagsan iyo nabadgelyo ah. aad baa u mahadsantahay. waxaad warbixin kooban naga siisaa horta Soomaalidu maamulkii TPLF markii lagu jiray qorshe ahaan qorshaha dawladnimada xagee bay kaga jireen, haddase xagee kaga jiraan? waad ogtahay maamul ahaan TPLF markay dalka haysatay markii hore caasimaddu ay guday ahayd de waxay gaadheen heer madaxweynihii markaa jiray Ugaas Cabdiraxmaan Qani adeerkii ay hortiisa ku dilaan oo macnaheedu yasitaan intaa leeg oo haba yaraatee wax maamul ayna ogolayn Soomaalida gacanta ku hayso. taasaa tusaale u ahayd. kolkii dambe jijiga la yimidna waxa ay soo diri jirtay niman la taliyaal la yidhaa oo magacyo lahaa oo runtii la taliyaal aan ahayn ee ahaa nimanka iyagu taliya madaxweynayaasha jira maamula dhaqaalaha deegaanka ee amniga maamula ee nafta dadka muwaadiniintii gacantooda ku haya ciday dilayaan, ciday xirayaan, ciday deynayaan. kolkii dambe dagaaladii iyo colaadihii sii xogeysteen ee ay go'aansadeen inay xuduud military ku muqooniyaan dadkii markaa kacdoonka wadina waxa ay keeneen niman military oo la taliyaal ah oo harar fadhiya oo generaalla ah oo dhaqaalihii meeshana iyagu say rabaan u daldalanayay. dadkii deegaankana tacaddi aan hore loo arag oo aad u ballaaran kula kacay. marka waxay ahayd koox marka la eego deegaanka qaabkii u maamulaysay ay isugu jirtay xaqiraad, dil iyo boob iyo madaxda oo aan madaxaan laga soo qaadin la maamulo. haddii aad eegto xaaladda dalka talada dalkana waxay ahayd koox cid walba u samaysa horjoogayaal iyadoo ay leedahay oo ay dadka ku ganaaxdo oo ku dhibaatayso, laakiin talada dalka cidna wax ka siin. marka xafari ahaan 4 urur oo ay ahaayeen oo ay kala ahaayeen ururkii Tigreega TPLF, ururkii Axmaarada, urur Ormada loo sameeyey iyo urur koonfurta shucuubta koonfurta loo sameeyey ayaa magac ahaan talada dalka magacii EPRDF ku maamuli jiray. laakiin ahaan waxa talada hayay waxa ahaayeen kooxda TPLF. kuwa kale magacyaal un bay ahaayeen. magacyaalka laftigiisa Soomaalidu ka sii qatanayd oo ay ahayd sidan formulaha Soomaaliya 4.5 oo kale 0.5 ka ay qayb Soomaalidu iyadoo qoomiyad ballaaran oo Tigreega ka badan
haddana 0.5 ka laftigiisii baan loo sii ogolayna wax macno loo la siin jiray xagga marka la eego maamulka dalka tala ahaan ma jirin marka talada deegaanka oo noocaas ahayd ta dalkana sidaasaan ka ahayn waxaana noo dheeraa boob dil barakicin iyo xaqraad aad u ballaaran isbeddelkan hadda markuu dhacay arrimahaas maxaa iska beddelay oo aad nooga sheegi kartaa arrimaha waxaa iska beddelay kow shacabka maanta haba yaraatee wax dil iyo wax maaragtay barakicina iyo wax xuquuqda insaanka ka dhana oo dowladda dhexe ee Ethiopia ay ku haysaan ma jirto saddexdii sano ee ugu dambeysay shacabkeenu way ka badbaadeen gacantii kululayd ee kaga iman jirtay dowladihii hadisaba ka dhisnaa way ka badbaadeen dowlad deegaanka ah oo iyaduna shacabka dhibaataysa walow ay jiri karaan cabashooyin dad qaba oo maamul meel ka dhisan cid ka cabataan la waayin haddana dhab ahaan waxaan odhan karnaa 70kii sano ee u dambeysay dhibaatooyinka shacabka gaarayay waa laga nastay waxaa markhaati ka ah shacabka deegaanka ku nool waxaa markhaati ka ah idinka oo meelaha aad joogtaan Soomaali baan nahay dad kala maqan ma nihin ama qurbaha la joogo ama gudaha la joogo xuquuq insaan ku tumashadii xuquuq insaanka laga nastay dilkii baa laga nastay barakicintii baa laga nastay waxaa laga nastay boobkii ajnabigu ay boobayeen deegaanka ay dhaqaalaha niman generaalla iyo haweenkoodu intay yimaadaan farqaha ku guran jireen waxaa laga nastay caburiskii diinta qof alla qofkii loogu astaamaha diinta lagu arko lagu shaambadin jiray xaq jir inuu yahay gabdhihii sharabaad baad xidhatay loo garaaci jiray loo xidi jiray raggii garbaad la baxday loo dhibaateyn jiray wixii oo dhan baa laga baxay waa wax runtii muuqda waxaa laga baxay oo kale silicii iyo bahdilkii lagu hayay hogaaminta dhaqanka oo markay nafteeda u yaabtay noqotay mid ku milantay siyaasaddii laakiin maanta alxamdulilah rabbil caalamiin kaalinteedii iyo xorriyaddeeda ay u soo noqotay marka waxaa laga nastay dhaqaalihii ay gacanta ku hayeen kooxaha kooban ama ciidanka generaaladaasi ay maamulaan ama maamulkii markaa la shaqaysanayay oo ganacsi xora ka bilowday deegaanka marka waxaan odhan karnaa dowladda uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Abiy habay yaraatee wax dhibaatooyin oo maanta shacabkeenu ay ku cabanayaan ma jiraan waxyaalaha hadda dadku ay ka hadlaan inta badan waxa weeye ma aha wax 3 sano ka dhacay deegaankeenna oo maanta laga tabanayo maamulka Dr. Abiy doona ama iman doona oo aan la gaadhin marka waxa yaab leh cidda leh waxa soo socdaan ka hor tagno waa cid dhinaca kalena kale kooxdii Tigreega ahayd ee shada dadka laysay ee gabdhaha kufsatay ee kumaankunka qof dishay ee xabsiyada ku gurtay aynu wax la qabsanno koox leh oo taariikh la yaqaano kooxdii lahayd ee dhibaatada ku asteysanayd oo waxay soo wadaan gacan u jirtay oo la ogeyn laftigeeda marka taariikhdoodii dhaqankoodii la eegana khayr badan aan lagu ogeyn ayaa waxay kooxdii aynu ogeyn dhibaatada wadayna aynu wax la qabsanno kan aynu aragno ee hadda wax dhibaato inoo geystay ayna jirinna aynu mucaarado la dagaalano marka aqliyadda saxda waxay noqon lahayd ka kuwa waan aragnay kana 3 sano wax dhibaato ay inoo geysan inaan dhibaatooyin la inoo geysanin midnimada aan adkayno mowqifkeena aan ku adkaysano aan ka tawaabushaysano inaan wax dhib inagu imanin haddii wixii 3 sano jiray wax ka duwan la inoo yimaado halkii laga oran lahaa cid aan waxba ina yeelin aynu la xaajoono ciddii waxayna yeeshay aynu taageerno yaa maaragtay lagu bedelaya lagu andacoonaya waa wax aad iyo aad looga xumaado oo nasiib darro ah runtii aad baa u mahadsan tahay madaxweyne waxaad warbixin kooban naga siisaa kobaca dhaqaalaha ee gobolka Soomaalidu ay degto ku dhacay tan iyo intii aad timaadeen iyo intii ka horreysay isbarbardhigid si kooban wallahi markaad eegto intii aan joognay de 3 sanadood baa la joogay oo waliba ku faakac badan la marayay marka intii ka horreysay oo dhan hadii la isku qabto tartan isu dheelitiran ma ahanayo laakiin haddii aan soo qaadano 3 sanadood dhanka horumarka runtii waxaan odhan karnaa 10kii sano ee ka horreeyay waxyaalaha aan la qabano dhanka jidadka dhanka iskuulaadka iyo waxbarashada gaar ahaan dugsiyada sare iyo boodhinada dhanka xarumaha caafimaadka isbitaalada iyo dhanka biyaha waliba gaar ahaan magaalooyinka waaweyn
ayaa runtii la qabtay waxaan oran karnaa shacabku markhaatiga ka yihiin in miisaaniyaddu si ka ballaaran sidii hore dhammaan 11 gobol iyo 93 degmo ay u gaadhay dhaqdhaqaaqa ganacsiga xorta ah oo aad u kordhay awgii waxaa magaalo kasta aan oran karnaa 15% ilaa 20% dhismayaal hor leh iyo ganacsi hor leh iyo shacab hor leh ku soo kordhay marka runtii xaaladda deegaanku walow cabsi ay naga hayso hadda abaarahan soo socda iyo colaadahan dhaqaalaha dalka saameynaya inay waxoogaa caqabada abuuraan haddana waxaan oran karnaa si aad iyo aad u weyn ayaa isbeddel ballaaran looga dareemayaa nolosha shacabka oo wax weyn ay iska beddeshay maasha allah waxaa warbixin kooban naga siisaa waxaa jira waxa la yiraahdo berbera corridor iyo dekedda berbera iyo dowladda Ethiopia xiriiro dhex maray dabcan gobolka ayay saameyn toos ku yeelan doontaa si gaara si guudna Ethiopia oo dhan dhawaanna safar baad ku tagtay safarkaas aad ku tagtay iyo bal warbixin kooban naga sii arrimihii dekedda iyo sidaad idinku haddaad tihiin gobolka Soomaalidu aad qayb uga tihiin ama uga ahaan kartaan arrinta berbera corridor waa arrin dowladda Ethiopia iyo Somaliland ay ku heshiiyeen Ethiopia ay ka faa'iideysato berbera dekedda berbera oo ganacsiga labada Somaliland iyo Ethiopia in la sii xoojiyo arrintaasi arrin meel fiican maraysa weeye kulley wadahadalladii hadda u dambeeyeyna in la isku afkarto wixii qaabka heshiisku u noqon lahaa ee loo isticmaali lahaa dekedda un baa harsan sidii kale waa lagu heshiiyey waxaa kaloo harsan waddooyinkii ama infrastructurekii in la dhiso ay ahayd oo qaar badan oo ka mida weli aan la dhamaystirin marka waa barnaamij marka uu runtii hirgalo faa'iidada ugu badan ay laba muxuu ahay Somaliland iyo Ethiopia soo hoyin doona laakiin gaar ahaan deegaanka Soomaaliduna maadaama uu yahay meesha ugu horeysa ee ka faa'iideysanaysa waa barnaamij aan aad iyo aad u naawilayno oo u soo dhaweynayno safarkaagii muxuu ku saabsanaa aad ku tagtay Somaliland safarkaygu wuxuu ku saabsanaa fariimaha la xiriira arrinta hadda aad sheegtay berbera corridor oo dowladda federaalku ay danaynaysay in hore loo sii dhaqaajiyo isfahanna laga gaadho iyo iskaashiga dhinaca amniga deegaan ka dhexeeya deegaankanaga iyo Somaliland oo dhinaca la dagaalanka hubka sharci darrada kooxaha argagixisada faldambiyeedka kale kontrabanka lacagaha adag arrimo noocaas oo la xiriira oo labada dhinacba runtii ay xasaasiyad ka qabaan inaan iska kaashano ayuu ku saabsanaa si wanaagsanna waa la isugu afgartay dhammaan wixii aan isla soo qaadnay maasha allah su-aasha ku xigta waxa weeye mar baad haddaay taabatay dad baa waxay badanaa sheegaan mucaarado ku ah maamulkaaga Soomaali ah inta badanna marka ay ku mucaaradayaan waxa ay kugu xiraan Abiy Ahmed markii Abiy Ahmed kugu xirayaanna waxa ay ku daraan oo hawsha ugu jirta in ay jirto wax la yiraahdo amxaaraduna ay ka dhib badnaayeen nimankii la oran jiray Tigreega arrinta maxaad ummadda Soomaaliyeed kala wadaagi kartaa oo aad ka gaarsiin kartaa hadda koorna waan ka hadlay arrinta axmaarada laga hadlayo anagu maamul axmaaro on jaarnahayna ma jiro maamul axmaaro oo dowladda Addis Ababa ee federaalka haystana ma aragno marka waxaan u aragnaa uun arrin lagu xilqarinayo taageerada kooxaha qaarkood ay siinayaan kooxda TPLF ee dhiigmidatada ah ee shacabkanaga gumaada ee kufsatay maadaama arrintaasi ay ceeb tahay markaan nidhaahno kuwii shalay na leynayay na dilayay afgabaadsi in looga dhigto axmaaradii ka horreysay baa dalka haysata iyadoo oo xaaladda dhabteeda jirta ay tahay ra-iisul wasaaruhu qoomiyad ahaan axmaar ma aha falsafadaha iyo siyaasadaha dalka hadda uu ka wadaana kuwo sida sawaxanka la sheegayo ah oo federalismka burburinaya uma aragna annagu waxaan ognahay in intii isagu xilka uu hayay
laba dawladood oo hor lagu soo daray nidaamka federalismka ee dalka waxay kala yihiin sidaama oo la siiyey ismaamul gobol ah iyo koonfur galbeed kelil ama deegaan la yidhaah oo hor la soo kordhay waxaa kaloo la filayaa in deegaano kale hor le iyaguna nidaamka federalismka ay ka faa'iidaan marka federalism baa lala dagaalamaya waxaa ka hor imanaya xaqaa'iqa dhabta ee socda waxaan ognahay in luqadaha waddanka lagu shaqaynayo la rabo in dastuurka lagu qoro inay 5 luqadood noqdaan oo af Soomaaligu uu ka mid yahay waxaan ognahay in dhammaan maamulada ka dhisan deegaanadu maanta ay haystaan xorriyad ka wanaagsan tii jiri jirtay hore oo maamulka deegaanka Soomaalidu maanta markii aan baarlamaanka xulanaynay marka aan madaxda xulanayno cid haba yaraatee ka socota ama ciidamada ka socota ama sirdoon ka socda ama xisbi korka jooga ka socda oo inta noo yimaadaan yidhaahdo hebel marka lagu qori karo ama sida laga yeeli karo haba yaraatee ma jirto ismaamulku wuxuu ka go'aankaaga oo u madax bannaanato anigu ismaamul inta ka ballaaran oo kale runtii garan maayo mar haddii wixii aan madax ka dhiganaynay baarlamaankan soo doorin anagu aan wax bannaanahay marka guddoolooyin la xiriira dhinaca qaababka dimuqraadiyadda oo guud oo dalku maadaama bilow hadda ku yahay processkaas jira way jiraan kuwana in caqabadahaas la xalliyo oo laga gudbo diyaar baan u nahay waanu jecelnahay laakiin runtii maanta xukuumadda jirta xukuumad qowmiyad gaara loo asteeyo ama loo aanayo haba yaraatee ma jirto waxa weeye marka dadka raba inay ku qariyaan boorka isku qariyaan inay noo sheegaan cidda maanta dalka maamulaysa siday ku noqotay qowmiyadda ay sheegayaan laba waxay qowmiyaddaas nagala maqan tahay hadda ee inaan ka doonno ay tahay saddex sababta ay ku aamineen qowmiyaddaasi haddii ay damac waaliya la timaado inaan annagu aan ogolaanayno aan diidi karin afar qowmiyaddaasi haddii xitaa loo aanayo maamuladii ka horreeyey TPLFta ee dhergigii iyo Hayle Salaasi iyo oo ahaa kuwii shacabkeenna soo maamulay intii aan garanayn taariikh ahaan waxyeeladii ay geysteen inay ka ballaadhnayd TPLF ma qabaan waxaan aaminsanahay TPLFta shacabkeena ay ku samaysay maamul Ethiopia ka jiro oo ina soo maray oo inoo geystay ma jiro waxaa la yidhaahdaa federalism iyo ismaamul bay siiyeen TPLFtu laakiin waxaad ogtahay markii uu sii dhacay maamulkii Mingista Haile Mariam inuu dhisay la ogaadeen autonomous region waxa la yidhaahdaa in marka gacanta lagu hayay in deegaan la yidhaahdo deegaanka ismaamulka ogaadeen la sameeyay in gobolkan maanta Dirdhabo magaalada Dirdhabo maanta la isku haysto ay xarun u ahayd gobol muxuu ahaay Ciisa iyo Gurgura loo jiray Hayle Salaasi xilligiisii oo meel Soomaalida aan muran laga gelin ay ahayd marka runa maamulada dhisan iyo degmooyinka dhisanna badankooda waxa bixiyay maamuladii ka horreeyay TPLF ka horreeyay ama Hayle Salaasi ama Mingista ha noqday ayaa maamulada magaalooyinka aynu u naqaanay iyo gobolada badankooda aan oran karnaa iyaga bixiyay intaan ogahay sidaa daraaddeed maamulo sidana iyagu inoomay bilaabin ismaamulna anu waxaan ogahay ilaa iyo Harar magaalada Harar oo markaa ahayd xarunta gobolkii la oran jiray Hararge Bashiir Sheekh Siciid baa haysan jiray oo nin Soomaaliya oo ka awood badnaa dhammaan wixii general meelaha joogay marka markii ugu horreysay ee Soomaali wax loo dhiibay ma ahay waxa ay qolyaha Tigreegu sameeyeen waxa weeye ismaamul magac Soomaaliyeed wata oo shaqaalihiisii iyo bureaucracy-giisii wata iyo baarlamaankiisii in la sameeyo taana dalka oo dhan arrin soo kordhay ayay ahayd wax gaar oo inaga Soomaali ahaan la siiyay ma ahayn marka waxa soo kordhayna ma xaqirayno waxa wanaagsan oo soo kordhay oo maab iyo magac iyo iswata weeyaan laakiin in jiritaankeenu ka bilowna iyaga arrintii arrin xaqiiqo ku salaysan ma marka dooduna waxa fiican inay noqdaan doodo taariikhda iyo xaqaa'iqda jira ku salaysan ee inay noqdaan ma aha doodo maaragtay siyaasadaysan oo cid walba meesha ay rabto ay kaga dhufanayso haddii la yiraahdo dhargii muxuu ina yeelay waa in la yiraahdo intaas qof inaga dilay dhinacaas uu inaga cadaadiyay haddii la yiraahdo TPLF maxay inagu samaysay waa in la yiraahdo intaas inaga dileen waxaas inagu samaysay waxaas in la yiraahdo way la isbarbardhig la sameeyo dhaba weeyaan taa waxaad moodaa in laga cararayo marka anagu aaminaadeyda waxaan odhan karnaa kooxihii ka horreeyay TPLF waxay weerar ku ahaayeen waxgaradka dadka Soomaaliyeed ee deegaanka iyo wixii siyaasad haweysta iyo wixii maamul haweystay halis ku ahaayeen waxayna la dagaalami jireen jabhadaha iyo dadyaga ay isleeyihiin waxay fahmeen
gumaysigii dadka lagu hayay laakiin kooxdii TPLF-tu waxay weerar cad ku qaaday qiyamkii iyo jiritaankii iyo akhlaaqiyadkii bulshada inay weerar ku qaaday waxay dadkeena gaarsiisay meel diintooda ay ka cararaan meel damiirkooda ay ka cararaan meel dadnimada ay ka cararaan marka runtii ma ahayn oo kaliya weerar siyaasiin lagu qaaday weerar bulshada lagu qaaday buu ahaa oo haddii uu sii socon lahaa oo ilaahay naga soo gaarina khayraadkeennana inagoo indheheenu shan yahay oon ka hadli karin waxay rabaan ay ka yeelayaan wayna bilaabeen arrimaha noocaas qadiyadda khayraadka kelmad naga dhe su-aasha ugu dambaysa intaana u gudbin bal kelmad naga dhe khayraadka qaybsigiisa sidii ay TPLF-tu wax ku waday iyo sida dowladda Abiy Ahmed ay hadda wax ku wado maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin TPLF-tu wax sharciyaba in loo qoro khayraad ma ogolayn dastuurka dhan ee dalka wax kaga qornaa khayraad ma jirin haba yaraatee wax kaba yaraatee xeer hoosaad yar oo meelaha deegaanada khayraadka shidaalka oo kale ka soo baxo 5% baa la siinayaa oo meelo macmala lagu qoray baa jira oo isagana aan la fulin laakiin hadda waa laga doodi karaa ma nagu filantaa ma naguma filan laakiin ugu yaraan sharci baa jira qawaaniin sharci oo la qoray oo baarlamaanku ansixiyey oo qaybta deegaanku leeyahay ay ku caddahay baa jirta 50% wixii ka soo baxay faa'iidada shidaalka iibkiisa in deegaanka uu ka soo baxay la siiyo 25% dowladda federaalka ee maamulka gobolka uu ka soo khayraadka inuu ka mid yahay in miisaaniyadiisa lagu daro 25% deegaanada aan wax soo una ka soo bixin khayraadkaas taa macnaheedu waxa weeye wixii waa khayraadku shidaal kaliya ma aha macdanta waaweyn sida dahabkuna uu ku jiraa macdanta qaar marka waa in deegaanadu ay kala faa'iideystaan laakiin deegaanka uu ka soo baxayo 50% la siiyo marka cid oranaysa 80% baa fiicnayd way jiri kartaa waana dood in la diido ayna ahayn laakiin cid aan waxba ku qorin waxbana ku ogolayn sharcina aan soo saaray arrinta iyo cid 50% kugu bilowday runtii inay kala duwan yihiin oo ay muuqataa waan qabaanugu waxaa intaa dheer lacagaha shirkadaha laga qaado ajnabiga ay ka shaqeeya meelahaas ama baaritaanka cid wax ka ogeyd ma jiro annagu hadda dabagal baan noqonay su'aalaan ka keennay in maaragtay dadka halkaa ku nool degmooyinka shidaalka soo baxayo shirkadaha canshuurta laga qaadayana deegaanku wax ku yeesho ayaan ka hadalnay waxaana maalinka khamiista iman doonaa wasiirka macdanta ee dalka Itoobiya halkan oo wada lacag ilaa 50 milyan oo tii bilihii hadda sanadkan ahaa iyo intii muddo sanadka gudihiisa ahayd wixii khayraad ah wixii lacag ahaa ee laga helay ama muxuu ahaayey shirkadaha ka shaqeeya kaalmaha meelaha shidaalku jooga lacagtan waxaan inaan uga faa'iidino meelahaas shidaalka dadka ku nool maasha Allah marka hawshaas waa hawl u baahan xisaabtan dheeraada iyo in la sii eego in la ogaado maxaa meesha laga qaaday maxaan anagu leenahay sharcigii qornaag ku sheegaya oo u baahan laakiin waa bilow wanaagsan ma oran karo su-aasha ugu dambaysa waxa weeye dagaalada iyo isriixriixa ku dhisan deegaanada ama geopoliticalka waxa la yiraahdo meelaha juqraafiga waxaan arkaynaa Abiy Ahmed inuu heshiis la galay Eritrea in lagu siiyey Nobel Prize kadib uu galay heshiis kale oo labaad oo la yiraahdo Horn of Africa Alliance oo uu ku soo daray Soomaaliya heshiiskaas buuq badan buu keenay wadamada Westernka ama reer galbeedku waxay ka muujiyeen walwal waxaa la filayaa oo la aaminsan yahay dagaalada hadda Ethiopia in dawladdu ay tahay cidda ay ka soo horjeedaan internationalka ama western ama globalka wadamada maamula oo reer galbeedka la yiraahdo oo ay la jiraan dhanka TPLF haday tahay media haday tahay logisticska haday tahay meel badan waxa kacay marka kacaan la yiraahdo no more oo grassroots movement dadkii shacabka ahaa oo ku noolaa westernka oo kacay oo mudaharaadyo dhigaya oo raaliye dhigaya waxaan arkaynaa Eritreankii iyo Ethiopiankii inay isugu yimaadeen oo ay labadoodii calan wataan oo ay buuxaan oo ay dagaalamayaan iska gees dagaalamayaan oo ay dadkii la hadlayaan oo ay caalamka u sheegayaan no more gumaysi ma doonayno noo daaya dawladayada lagu doortay dimuqraadiyadda Soomaalidii kama dhex muuqato maxaa kula talin lahayd marka ugu horeysa horta guud ahaan Soomaalida badankeedu qaabka ay u kala safato ay ula kala safato xoogaga is haysta waa laba qaybood qayb waa qayb danaysi ku salaysan ama hadii ama deegaan ha ahaado ama shakhsi ha ahaado siyaasiya oo u arka marxaladda marka uu kala taageerayo isaga
wixii uu dana inuu raacayo marka waa mid dan ku la xidhiidha midna waa mid qaliil khaldan la xidhiidho oo ah ciddaas ayaa gacan sarrayn doonta ama guulaysan doonta waxaa badan kuwa dambe jecel in cidda guulaysanaysa ay maaragtay la jaan qaadaan ciddaasaa guulaysanaysa qarayga darraba kuwa aan taageerna yaa badan laakiin marka dib u eegto soomaalida oo kale gaar ahaan dadka deegaankana iyo dadka soomaaliyada kale jaarka aan nahay jooga qaabkay uga falcelinayaan xaaladaha hadda jira way kala duwan yihiin dhinacna waa iska shabahan annaga xagganaga inta badan dadka taageersan kooxda TPLF waa dadkii ka faa'iiday 10kii sano ee u dambeeyey TPLF ay dhibaatada waday iyo 27kii sano guud ahaan marka dadkaasi waa dad dhammaan 12 gobol ka soo jeeda systemkii dhisna wax ku qabay siyaalo kala duwan dekanooyin u galay marka de inay badbaadaan ama inay ba taariikh ahaan magac ahaan badbaadaan ama inay shakhsi ahaan iyo dhaqaalahood badbaado waxay ku xiran tahay kooxdii ay la shaqaysanayeen inay xog ku soo laabato kuwaas waa kuwa noocaasa kuwana waa kuwa ay kuwaasi arbushayaan oo ay maaragtay taxliil khaldan oo qoladii baa soo noqonaysa aan la qabsano wax noocaas ay u sameeyaan dhanka Soomaalida kale ee ka baxsan deegaankanaga waxaad moodaa in iyada laftigeeda labadaas sabab ay tahay dad nidaamka federalismka la yiraahdo Soomaaliya laga fuliyay taageersan una arka go'aankii ra'iisul wasaaruhu qaatay inuu la shaqeeyo dowladda dhexe ee Soomaaliya inuu ha go'aan caburinaya maamul goboleedyada dad u arka oo dana siyaasadeed uu ka arbushay way jiraan dad yow karo taxliil khaldan oo qoladaas soo noqonaysana way jiraan haddaan ku horeeyo kuwa federalismka Soomaaliya in wax la yeelo u arka waxaan ognahay in 27kii sano ee u dambeysay ee kooxda TPLF dalka ka talinaysay cabashada ugu badan ee Soomaalidu ay qaybtay ay ahayd in nidaam dawliya uu ka oo adag Soomaaliya ka dhismo waxa hortaagan Itoobiya oo maamuladii cid walba hub siinaysa oo cid walba la safarta oo Soomaalidii qabiil inay gobollo u samaystaan ka shaqeynaysa aragti noocaas ay jirto marka aragti noocaas ah uu risaluhu ka leexday ee uu yiri anigu dawlad dhexe oo Soomaaliya baan la shaqeynayaa maamulada kale ee meelaha ka jirana ee dawladooda ha u tagaan markii uu yiri haddana maamuladii ka dhisnaa meelaha iyo dadkii ilidkii dadkaas ku dhisnaa haddana waxay keeneen in arrintii mucaarada marka xas leedahay maxaa u roon Soomaaliya talo cid walba oo maanta hadlaysa marka laga tago maamulada goboleedyada Soomaaliya ka jira cid walba maanta hadlaysa haddii bari xukunka Muqdisho ay qabato waxa ugu horeeya ay damci doontaa waxa weeye anaga la xidhiidh anaga dawladii anaga dalkii Soomaaliya matalayna oran lahayd xitaa kan iyo maanta mucaaradka ku dawladda ka dhisan xamar taas oran lahayd marka laakiin waxa weeye maanta dan ima ah oo kan fadhiyaan ku kicinaya برينا سيوم بان يلي دونا فكرة بعد مدعين وكم مغضو حقيقة وي نظام كفدراليزم كصوماليا لكاني وطبقي قبائل كي وحسكور كاني والله ورن كرا عبسيدا لقى قبو الدولة أدق أو دكتاتورة أو قدرة عاصمة الدولة إثيوبيا نقطة من صوماليا أيها كينيا تطبيق كو أردان نظام ليا فدراليزم وتولوين كودي كودي أي كوبت بعدين مركا لكن وخلد يعني تحليل هان نظام أدق والدولة حو أدق إيو نظام دكتاتورة ياد مدعين إسكاق قصنتها مثلا نظام كدو دكتاتورية طبعا إن لقى عبصدو ماشى ويتهلا لكن دولة أدق هلا سماية مركي لليه دولة أدق وديمقراطية هدية عدي سنتو دي وحنسلايا هاي ستيل فدراليزم كو دقالها إنه هوسو دادقو طلوين كو إنه هوسو دادقان واحد في عام ويان ونظام وناكسين ويان نظام حماه لكن قاب كلو فلنا يمركو يهي قاب وقنت اللي يسوق لنا يو قبائله أما قوبيضو مركو يهي آخر كده مديس ونقونا يا وندلكو وينو بربرو نقونا يا مركا هدي بربر لقى شقينا ينا وقاب وسي هلين دلك الاسكيور كيني كرو هدي وناق لو استعمال ينا دي الدولة أو dadkii maamulkii iyo dhaqaalihii hoos u daadajisa laakiin de isku hayntii dalka ka shaqeysa in la helo arrin daruuri ah weey marka waxaad moodaa federalismka lagu cararayo oo ah nidaam wanaagsan in qaab ahaan qaabka lagu cararayo aad moodo qaab dictatorka carada haddii saa tahay waa xalaal weeyaan in laga cararo nidaam dictatora oo dadka dhibaateeya oo caburiya laga cararo waa wanaag laakiin ka cararkaasi haddii uu keenayo in uu burburo dalkuna bal in iyadana cilmiyaha hoos loo eego faa'iido leeyahay way la quman tahay marka Soomaaliya kale waan ka hadlayaa hadda anu
Soomaaliya oo kale dawladda dhexe cid la shaqeynaysa Ethiopia siyaasad sax ay qaadataan oran kara waa siyaasadii in badan Soomaalidu ay ka caawin jirtay markii tii la saxay marka haddii ay leeyihiin dawladda Muqdisho ka dhisan iyada ayaa afkaaro khaldan iyo nidaam ka duwan nidaamkii lagu heshiiyay dimuqraadiga ku dhaqantay eedeeda waxa qaadaysa dawladdaas ay eedeynayaan laakiin ciddii ka baxsan dalka ee dawladda taageertay tiri anu ciidan la xiriiraya in khalad leedahay marka sababta dawladda Kenya oo hadda iyadu waa muxuu ahaa jirta dad badan oo Soomaaliya ugu careysan maadaama maamul goboleedyada qaarkood ay taageerayso dawladdii Soomaaliya ay burburinayso dad badan oo Soomaaliya ugu careysan oo yaa jira marka Soomaalidu xagee rabtaa marka ma in dawladaha shisheeyuhu ma in maamul goboleedyada ku xidhnaan bay rabtaa mise in dawladda dalka dhexe lagu xidho in isweydiiyaan way dadka badan ee Soomaalida ay ka baxsan deegaankana waxaan uga faaloonaya arrinta maadaama qaabka uga falcelinayaan meelo badan aan runtii la yaabay annaga deegaankana haddaan ku soo noqdo waa wax cad dadkiina laayay Dr. Abiy Ahmed wuxuu sameeyey kooxdii canaasiirtii halkan joogtay ee Cabdiin hogaaminayay ee gabdhaha kursanaysay buu naga qabtay oo xirxiray kooxdii TPLF tahay kuwaan noo dhiibtay ee nagu leenaysay buu madaxa ka toogtay qaarkood qaar xabsiyada ay ugu jiraan qaar haddu dagaal kula jiraan marka waxaan oran karnaa waa nin oo arguday oo ciilkii iyo caradiina haysatay muxuu ahaayay wax nooga taray cidda marka maxaad noogu arguday iyo maxaad nooga qabatay Tigray oo kula dagaalamaysaa cid aan ka turjumaynin xanuunkii shacabkanaga ku dhacay iyo bahdilka ku dhacay baan u aragnaa wayna caddahay in maaragtay ay tahay cid khaldan marka waan taageersanahay talaabooyinka ra'iisul wasaaraha saddexdaas sannadood wax dhibaato oo naloo geystay ma jiraan cidda leh ra'iisul wasaare waxba nama yeelin aniga kaliya ma ahe macluurada mucaaradka ee maanta kolkay xaaladdu u muuqatay mid yar mugdi gashay sanado kale aan gelinaa yidhi 3 bilood ka hor iyo 2 bilood ka hor waxba nama yeelin Dr. Abiy isagana isma diidanin waan taageersanahay dawladda Addis Ababa dhibaatadooda ma aha dawladda Mustafa ee maamulka jijigaana dhibayo baa ee doodooda ahay waxaan oran karaan waan ka duwanahay aragtida waayo iyaga oran jiray oo lahaa anagu maamulka Addis Ababa heshiis baan lanahay ka jijigaanu saynaa kaas aan xumeeyay isma maamultaan ma oran karaan waayo haddaanan ismaamulin maxay eedan noo saaraysan anaga macnaha dhinacna inaad ka tiraahdo deegaanka Soomaalidu isma maamulo waa la haystaa oo waa caamiliin u shaqeeya maamulka Addis Ababa dhinacna wax walbo deegaanka ka xun Mustafa iyo tiimkiisa ka mas'uulaad wax isqabanaya ma ama sidii shalay ay oran jireen markii Cabdi uu joogay nira dadku leeyahay kala hadla waa caamil oo Addis Ababa laga maamulayo dawladda Addis Ababa una dhaleeceyn ama sidii yeel oo dawladda Addis Ababa dhaleeceeya oo anagu caamiliintii baan nahay waxaan dhacay deegaanka ka dhaca hanoo aaneynina oo sida hore yeela ama ismaamul inuu jiro oo ismaamulka cidda haday wax khaldameen khaldaysa annaga inaan intaad qirtaan maadaama annagu kii go'aanka lahaa aan nahay dee inaad qirtaan iyadoo in annagu aan wax maamulayno annagu ismaamulayno taa qira baan odhan lahaa haddii si caadiya loo fikirayo laakiin kulley mucaaradka deegaankana oo badankiisu u badan mucaarad awood isagu leeyahay aan ku xisaabtamin mucaarad parasiteka waa taqaanaa waa waxa maaragtay ku dhex nool wax nool ku dhex nool waa mucaarad fiish wata oo raadinaya meel uu ku xidho maaha mucaarad isagu awood gudaha ku xisaabtamayo oo isle waxaasaad qaadi kartaa marka tiiba waxay la gelaysaa kol inay BB ay u galaan oo sidaadaan xisbigan talada haya intaad uga dhawaataan kooxda maamulka maaragtay ku waxyeelay ama kala wareega kolkay u arkaan in TPLF ay malaha libid helaysana TPLF inay ku xidhmaan raba kolkay u arkaan reer galbeedku inuu waxayaan reer galbeedka haddii beri la yidhaahdo ruushka ayaa taladii Ethiopia la wareegayna ama Vietnamna ruushka iyo Vietnam ay la xidhaan waxba aan maaragtay aan u arkaynin marka mucaarad noocaas baa runtii deegaankanaga ka jira oo aan ku tashanin tabar isagu uu leeyahay laakiin parasitic ama raba inuu ku noolaan karo dadka wax kale oo nool inuu wax ku qabsado ka noocaasina wuxuu ka fogeeyay xaqaa'iq hadda jira wixii shalay maanta ma jiraan siyaasadii deegaanka waxay ku soo ururtay deegaanka iyo jijiga ciddii halkan tabar ku yeelata unbaa mustaqbalka haddii aan la yidhaahna tala ku yeelan doonta howlaha deegaankan isleeyahay maasha allah su-aasha igu dambaysa waa awoodda iyo ciidamada meesha waxaa ka socda dagaal markii dagaal socdo oo dawladdu ay dagaal gasho ciddii dawladda dagaalkeeda ka qayb qaadata oo awood fiican yeelata ayaa hadhowna dawladda ka qadayn doonta sidaan ognahay maadaama ay dawladdu waagii hore bolisigu ahaa
deegaanka Soomaalida in laga ilaaliyo hubka waaweyn iyo ciidamada iyo aad maaragtay maadaama aad dareenteen in uu relief jiro ama ninkaanu uu idin ogol yahay inaad xoogsataan oo aad jirtaan oo ismaamushaan ciidamada in la habeeyo ciidan badan la qoro oo aad dagaalka hadda socda aad qaybtiina ka qaadataan oo TPLF hadday soo gasho meesha dadka ugu horeeyo beegsanayso waa Soomaalida aad iska dhicisaan oo aad ka garab dagaalantaan dawladda oo hubkii aad ku heshaan oo aad dawladda ka mid noqotaan xagee bay maraysaa arrintaas mase idinku jirtaa qorshaha sida aad ogtahay deegaanka Soomaaliya waa deegaan aad u ballaaran saddex dal baan jaar lanahay haliso amniyan ugu hareysan baa jira marka anaga kaalintanadii markii aan qiimeynay xisbi ahaan waxaan u aragnay in deegaankan amnigiisa aan gacanta ku hayno xilligan xasaasiga oo hawlihii ciidamada qaranka ay qabanayeen anagu aan la wareegno kaalinta aan ciyaari karno inay tahay taas aanu aaminay tii baanu haynaa marka xooga ku filan inay wax ka qabtaan muxuu ahaa kooxda argagixisada TPLF way jiraan haddii baahidu ay keento in nimankaasi wixii lagu jabin lahaa ama laga hortegi lahaa naloo baahdana hadda ka horna waan muujinay inaan diyaarnahay haddana diyaar baan u nahay laakiin waxaan aaminsanahay hadda ahmiyadda annaga noo taallaa inay tahay dejinta deegaankanaga iyo ilaalinta xuduudaha haddii sidaan kuu sheegay taa aan qabanno waxaan isleenahay meel weyn baan soo baxnay dhinaca diyaargarowga si fiican baan u diyaargarownay waxaan odhan karnaa waxaan haysanaa xuduud aanu isleenahay amniga deegaanka ku furan tahay wax weerar oo meel kale naga yimaadana waa iska cabiyi kartaa waxaa laakiin taa la rabaa inay barbar socoto jihaynta shacabka iyo in midnimo mabda ku salaysan oo aragti ka fog xintan iyo mansab isku dagaalan in la yeesho oo hogaamin bisil oo noocaasa dawladdana ay ka soo baxdo ururada siyaasadana ay ka soo baxdo odayaasha iyo aqoonyahankana ay ka soo baxdo marka bulsho hamigeedu ka fog yahay ishaysiga dhexdeeda in lala yimaado ayaa iyaduna muhiima diyaargarowga amniga marka la eego wuu fiican yahay laakiin diyaargarowga siyaasiguna inuu ka mid la mida noqdo ayaa loo baahan yahay kaalintanada waanu ka ciyaaraynaa keliya waxaan xusuusinaynaa walaalaha annaga noo arka inaan khaldannahay in ninka ku qanacsan TPLFtii shalay xubnihiisii meydkooda ku duldhaantaynaysay ee gowracaysay ee gabdhihiisa kursanaysay in wax la qabsado qofka niyadiisu ay siisay qalbigiisu uu siiyey wuxuu uga diiqadoodo walaaladii oo afkaar uu isku garamareen ee uu ugu arko inay dhimasho tahay inuu wax la qabsado runtii waa arrin nasiib darra waayo ninkii shalay toole gabdhaha kursanayay haddii aad la fadhiisan karto inaan oo isku luqad aydan ahayn isku diin aydan ahayn ninaas isku luqadii isku diin tihiin ood weliba maadeer tihiin oo uun xifaaltan siyaasadeed dhex maray inaad u aragto inuu cadowga ka wen yahay waxaan isleeyahay waa runtii waa nasiib darro ballaaran oo ina haysata waxyaalaha in laga gudbaan ugu baaqaya ururada salugsan siyaasaddanada annaga dhankanagana diyaar baan u nahay in wixii isku soo dhaweynaya bulshada iyo aan ka shaqayno iyo wixii laska kaashan karo siyaasadda in laska kaashado ururada noocaas oo kale waad mahadsantahay ugu dambayn 2 daqiiqo waxaad nasiisaa warbixinta aagga dagaalku hadda ka socdo TPLF-tu waatay soo gashay gudaha dhinaca canfarta waatay meelo badan ka qabsatay dhanka amxaarada waatan Kambolja iyo Desi iyo areadaas soo gashay xagee wax marayaan si kooban waxaad la socotaa in toddobaadkii hore ra'iisul wasaaraha dalku furunta hore tegey isagoo ujeedadu siyaalo badan loo kala dhigay laakiin ujeedadu ay ahayd in isagu maadaama military na uu yahay ra'iisul wasaarihii dalkana uu yahay uu ku qancay in tegitaankiisu wax ka bedelayo moralka iyo diyaargarowga ciidanka labadaba marka haddii aan eegno intii ka dambeysay tegitaankaas dhinaca afarta dhammaan waa laga sifeeyey kooxdii TPLF-ta jab aad u ballaaran baana la gaarsiiyey dhinaca gobolka Axmaarada dhowr furmood baa jiray mid ka mida unbuu ahaa meeshii markii hore ay soo dhaafeen tiina hadda dib baa loo sii riixaya oo loo wadaa dhinacyo kale horlana waxaa laga sameeyey horumar waxaana hadda ay u muuqataa in momentumkii ama xaaladii ay isbedeshay oo kooxdii TPLF-ta la helay maaragtay khidadii ay ku socotay ay ahayd inay magaalooyinka dhaafto propaganda badan abuurto
meelo miyi qaab jabhadeen ay ku gasho dhabarjabin ay ku samayso ciidamada nooc khidadii noocaas tacticada ah nooc jabin kara in la helay in la abaabulo ciidamo iyo shacab aad u badan oo inay deegaanada ay ka soo jeedaan sida gobolka Xamaarada oo kale inay ka xoreeyaan kooxdaas diyaar u ah marka iyadoo xaaladda dagaalku aan la oran karin way dhamaatay isbeddelkeedana ay iska leedahay ayna habboon tahay marba in lagu xisaabtamo in laga yaabo in muddo u socdo haddana fafaalo guuleed oo xagga dowladda ayaa ka soo muuqdaan odhan karnaa aad iyo aad baa u mahadsan tahay madaxweyne mar kale waxaan kaaga mahadcelinayaa inaad nagala qayb gashay falanqaynta iyo iswaraysigan muhiimka ah oo ummadda Soomaaliyeed muhiimka u ah waxaan insha Allah tacaala ku rajaynayaa guul iyo horumar iyo inaad ku guuleysataan maamulka aad haysaan aad iyo aad baa u mahadsan tahay adiga mudan aad iyo aad baan ku salaamayaa الله يسلمكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته